taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha ciidanka badda iyo taliyaha guutadan sagaalaad iyo saraakiisha iyo ciidanka dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullah. runtii sharaf weyn iyo maamuus waxaa leh qofkii idin soo hor istaaga. sababtooy tahay waxaa tihiin geesiyaal naftooda biimeeyey, naftooda huray, magac dalkooda iyo deegaankooda u soo jiiday. dadkaas dadka taariikhdu xusto oo bugaagta taariikhda laga barto ayay ka mid yihiin. adduunka waa la qoraa. waan rajaynaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalku intaan hawshaan qaybta ka ahayd ee dhulkaas dheer oo 180 kilomitir soo jartay ee halkaa naftooda ku soo biimeeyey ee al-shabaab daynuna ay kula soo diriray, horeyna bakool ugula diriri jiray, soo gaaray baydhabo, amnigii dadka sugaya, ka ilaaliyey fowdo, ka ilaaliyey in la isdilo, in la iska aargoosto, in dadkii la barakiciyo, ka ilaaliyey. dadkaas sharafay leeyihiin. waa laydiin hayaa dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. farxaddooda waad aragteen soo maaha. islaantii ducaynaysay ciidanku markay soo galeen, sawirkaas ma la arag. islaan saas le ilaahay waa kugu mahad. ilaahay baa naga soo gaaray, ducadeennii baa la aqbalay. islaamaha iyo dadka deegaankan ku nool, baydhabo ku nool, koonfur galbeed ku nool, Soomaaliya ku nool oo dhan ducadoodii waa la aqbalay. waata roobku iska soo yimid markaad timaadeen. horta waxa ay wadeen inay fiicnaayeen, roob baaba idinla socdayba, welina waa idinla socdaa. cirku hadda wakaas ah. marka mujaahidiinta dhabtaa idinka waay, iyo ciidanka kaloo garbihiinna joogay oo xoogga dalka iyo ciidamada deegaankuba waa idinkaga mahad celinaynaa. maanta mahad celin bay ahayd in laydiin mahad celiyo, in laydiin og yahay. waxaad samaysay waxaa ugu fiican lain shakartum la asiidannakum. haddii ilaahay aa uga mahad celisaan wixii fiican oo aad maaragtay ilaahay idinla qabto waa laydin kordhinayaa. biri ilaahay waa noo kordhinaya. khawaarijta annagoo baabinaana la arkaya. waa inaanan marka aad u kibrin, aad maaragtay isku qaadqaadin, laakiin aan ku darnaa ilaahay waa kuu mahad. ilaahay baa wiilashaan jidka inay soo maraan naftooda biima morta soo mahayn. soo cadow horteenna ma joogin, soo al-shabaab ma la dhigin horteenna, soo afarta barjo inta ka yimaadeen lama dhihin ma gudbi karaan, uma gudbi karaan. marka waa ku mahadsan tihiin. waxaa laydinka rabaa kow ma joogta arrintu. ciidanku wuxuu xilsaaran yahay ilaalinta qarannimada iyo midnimada iyo ilaalinta dastuurka dalka. ciidanka xoogga dalka u xilsaaran. shaqada ay qabanayseenna intaasay ahayd. shaqo fiican baa runtii ayaad qabateen. waan idinkaga mahad celinaynaa. waxaa noo dhiman in dadkan laga dulqaado. dhulkan dhulkii wax soo saarka waay. Soomaaliya meeshii laga quudin jiray waay. labadan gobolladan gebi ahaantood waa meeshii masagada iyo galeyda iyo laga soo saari jiray ummadda Soomaaliyeed. dadkii inay ka sugaan masaga laga keenayo Mareykan ama qamadi laga keenayo Brazil inay sugaan xaraan way. ciidaas madowna ayna hor taallo. dadkii wax beeri lahaana khawaarij ay gadaal ka soo cayriyeen oo dhulkoodii ay wax ku beeran jireen. dadkaas waxay nooga baahan yihiin maanta aan noolnahay. waxa gobolkan Baaya Bakool jooga oo al-shabaabka u malayn maayo kun iyo xogaa inay dhan yihiin. ciidankeenna iyo shacab weynaha koonfur galbeed iyo dowladda Soomaaliya hadday iskaashadaan waa la xaaqi karaa. jidkan waa la isku furi karaa. muqdisho iyo baydhabo. jidkan muqdisho iyo xudur, muqdisho iyo waajid iyo baydhabo, waajid iyo xudur si halow loo furi karaa. waa furi karnaa. waxaan isku ognahay waajibkaas in la guto. dowladda Soomaaliya wixii xuquuq oo ciidanku leeyahay, dalacaad, dharkii, kabihii, qoryihii, rasaastii, baabuurtii, gaadiidkii, wixii oo dhan diyaar waay. ciidan gacanta loo taagay
ciidamada la mid ah maan kuwaani ما marka hore meel ay u soo maraan ilaa idmo wadadii furteen hadda wadadiina waa furteen hadda kadib baabuur la'aan ma jirto inkastoo baabuurka ciidanku hadday bartaan ay safiicnaan lugtu ka fiican tahay laakiin baabuurku gadaal buu ka soconaya waxaan idinkaga mahad celinaynaa halgankaas dheer halgankii kow ma joogo khawaarijtii weli waa noo nool yihiin weli dadkay ku shaqaynayeen waa noo joogaan kuwii habeen kasta ida cabsi gelin jiray oo intay idin soo waca dhihi jiray waa hareeraysantiin ma la soo gudbi karo daynuunaay meel hebel lama imaan karo kuwii ayagoo meelahan joogay iska fadhiyaan iskuma arkaan inay khawaariju shaqaynayeen markaas laakiin si dadban bay khawaarijtu fariimaha dadka u marsataa kuwaas mayaa tidhaahdeen waad ku mahadsantihiin taariikhda idin sheegaysa deegaankaanna horumar iyo barwaaqo iyo waxaa u biloomaya insha allahu tacaala maamul dadkiisa ixtiraama maamul dadkiisa rabitaankiisa ku shaqeeya maamul dadkiisa u naxa maamul khawaarij uusa derbi u noqon oo khawaarijta isagu diyaar waa inuu horay maaragtay la diriro oo ciidamada garab siiyo ayaa imaan doona waana ku mahadsantihiin beekaamyadaas shabaabka laga furtay oo halkaas jooga maanta dad Soomaaliyeed baa lagu dhibi lahaa waana runtii markii koowaad oo aan arko beekaamyo laga furto al-shabaab iyo qoryo laga furto qoryo badan waa laga furtaa laakiin meel ay galaan ma naqaan kuwaan hadda waa u jeednaa in ayagii baa lagula dirirayaa kuwa kalena waa lagu soo furan doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa dadka South West degan iyo wiilashii dhalinyarada ahaa oo deegaankan kuwa isqarxinaya maalin kasta oo shabaabku intay ka duubaan codka adeerayaal kuwaas la badbaadsho u baahan yihiin in lala hadlay u baahan yihiin sabab janno cali dheere uusan rabin oo mahad karatay uusan rabin oo Abu Ubaydah al-shabaab haystaa uusan rabin sabab ayaga kaligood ay u jeclaadaan ma jirtay hal laga reebo janna meeshaas ma jirtay wiilashaas ama ay halugula hadlo warkaas waxa la yiraahdo nimankan gafanayaasha oo gobolada kale ka yimid janna hadii la rabo wiilashooda ha u dirsadaan ayagu ha aadaan cali dheer waa soo taagaya waa aragteen maad karatay cali dheer laftoodu intaas laagto qoortoodu intay laagtaa ma aragtay intaas waa gafanayaal waa naaxeen dhiig ilmaha yarka ku naaxeen kuwaana waxa leeyahay socda cali dheer maalin dhaweytuuba xaniye iska baaray oo wiil uu dhalay anuu mabhuba inuu xitaa isqarxiyo kaas aniga been inuu sadalin baa aaminsanaa cunugaas ciyaalkii daroogada ay siiyeen ayuu gacanta qabsaday wiilkan waa jeclahay asaga doortay inuu isqarxiyo ma u maleynaa wiilkiisa inuu ahaa waa tuug beenaala waa beentis wiilkiisa ma ahayn wiil daroogay siiyaan ilmaha meesha iska taagan yihiin asna ma dhaay aabahay ma ahan ilaa waa nin daroogasane marka waa durayaan waa mahadsantihiin dadka aan ka wacyi gashanno wiilasheenii way ilmaheena yareeraa way waa ka wacyi gashanaynaa aabayaashooda lala kulmo si gaar ah lala fariisto war ilmahan xaabada laga dhiganayo oo nimankan aan jannada rabin ayaga jannada u dirayaan wiil 18 jir maxaa janno looga dirayaa dambi ma lahan 18 sano jiraa jannadu raadina xuurul ciinta xagee joogtaa kuwii adduunka joogu saarag gabdhii adduunka joogu saarag 17 sano jira xuurul ciin buu aakhir rabaa inuu raadiyo kuwii adduunka wali ma guursan waxa la yaabo way dhimashada ninka weyn ah inuu jeclaado 50 sano gaaray cali dheere iyo 17 jir iyo 17 jir leeyahay adigu dhimo oo adduunku uu cusub yahay hadeertaan wiilashaas marka waa wiilasheenii waa ilmaheenii waa la lunsada duruufta looga faa'iideystay waa been baa loo sheegay wiilashii la midka ahaa oo beentaas beenin lahaa idinka weeye waa taliyihii waa kana taliyaashii kale waa joogaan idinka ciidankiya waa joogtiin halala hadlo reer bakool kuwa iyo kuwa bay ka yimid oo dhalinyarada ka soo baxa la yiraahdo ragii waa weynaaba ka yimid Soomaaliya ragii waa weynaaba ka soo baxayba hadda kuwa ku haray oo dhan faradheertii waa nimanka madaxdu waa kuwaas kuwii dhalinyaradii meelaha ka timidna waxa leeyahay firliye idinka kuwaan ilaaliya isqarxiya nimankaas marka waa cadow ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba niman la deysan kara maahan
niman dadkeena lagu fasaxi karana maahan 20 sano sanadkii 20aad baa hadda sanada soo socota 20 sano noo buuxsamaysa intay dalkeena joogeen suurtagal maahan markaas 20 sano qofkii ku dhashay weli wuu qaangaar hadda nin weyn way caruur leh 20 sano ka badan naguma qaadan karto inaan nimanka xukunka iska nadiifino tabarna ma lahan idinka cadeeyay aad iyo aad baa u mahadsantiin ciidanka xoogga dalka